dalka Mali, burbur, afgembi, cunaqabatayn, kaligiis talis iyo umuuro aan horey loo arag. Mid ka mid ah dalalka ugu xasilooni darrada badan qaaradda Afrika, dal ay hareeyeen kooxaha jihaadiyiinta, fallaagada iyo kuwa ku midoobay magaca Al-Qaacida. Warbixinteena waxaynu ka eegi doonaa waxa maanta ka socda dalka Mali iyo taariikhda uu soo maray. Mali oo ah dal weyn oo aan bad lahayn oo ku yaala wadnaha galbeedka Afrika, waxaa si xooggan u carqaladeynaya kooxaha xiriirka la leh magaca Al-Qaacida muddo ka badan 10 sano. Caasimadda dalkaasi ee Bamako waxa ay ku jirtaa nuuc go'doomin ah. Kolonyada shidaalka qaada ee geeya magaaladaasi ayaa dhexda loo galay amaba la hor istaagay, taas oo keentay in kaalimaha shidaalku ay noqdaan kuwo guurguura. Shidaal yarida dalkaasi ka jirta ayaa keentay in noloshu ay ku dhawaato inay istaagto. Safaf dhaadheer ayaa loogu jiraa bannaanka kaalimaha hore ee shidaalka. Qaar badan oo ka mid ah kaalimahaasi waa la xiray, halka gaadiidka dadweynuhu uu istaagay. Waxaana guud ahaan la xiray iskuulada, goobaha waxbarashada. Waxaa dalka ka dhacay koronto la'aan, iyada oo qiimaha cuntadu si degdeg ah ay kor ugu kacday. Go'doominta ka socota sanado badan dalkaasi waxa ay keentay in sahay cusub ay soo gaari weyso dalkaasi oo markii hore sahaydu ay uga imaan jirtay dalalka deriska la ah sida Ivory Coast, Senegal iyo Mauritania. Magaaladu waxaa ka dhammaaday agabkii daruuriga ahaa ee nolosha loo isticmaali jiray, ilaa ugu dambeyn dalka Mali maalinkii Sabtida ahaa ee shalay eena dhaafay uu ka dhacay weeraro kala duwan oo dhinacyo kala duwan loogu qaaday, iyadoo weeraro isku mid ah lagu qaaday magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkaasi. Waxaa gebi ahaanba la xiray wadooyinka, iyada oo dad badani ay ku dhinteen. Waxaa la waayay madaxweynaha dalkaasi meel uu jaan iyo cirib dhigay, iyada oo militarigu ugu dambeyn saqdii dhexe ee xalay ay sheegeen inay la wareegeen magaalooyin waaweyn oo shalay weerarku uu ka dhacay. Iyadoo maanta xaaladda dalka Mali ay ku sugan tahay xaalad hubanti la'aan ah oo aan la qiyaasi karin halka ay u jihaysan doonto. Kooxaha ka dambeeya weeraradani waxaa loo yaqaanaa Jamaacada Nasrul Islaami wal Muslimiin. Waa shabakad xiriir la leh Al-Qaacida oo ku baahsan gobolka Saaxil. Si aynu u fahanno shabakadani halka ay ka unkantay, waa inaynu si qoto dheer u eegnaa dalka Mali laftiisa. Mali waa mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn Afrika. Waxa uu xornimada ka qaatay dalka Faransiiska sanadkii 1960. Waxa uu dalkani khariirad ahaan ka soo bilaabmaa saxaraha weyn ee waqooyiga ilaa dhulka cagaaran ee koonfurta. Sidoo kale waa mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan qaaradda Afrika, maadaama Mali ay tahay dal xiran oo aan lahayn xeeb. Waxa ay ku tiirsan tahay waxyaabaha ay ka soo dejisato dalalka deriska la ah sida Ivory Coast iyo Senegal, sida shidaalka, cuntada iyo agabka kale ee muhiimka u ah nolosha. Dhaqaalaheedu waa mid nugul, waxa uuna u badan yahay macdanta, dahabka iyo beeraha. Mali waxa ay ku taallaa gobolka Saaxil oo ah dhul oomana ah oo ka hoos mara saxaraha, kana soo bilaabma badda Atlantiga ilaa iyo badda Cas. Gobolkan oo dhan, dowladaha daciifka ah ee ka jira, saboolnimada iyo culayska cimilada ayaa abuuray jawi ku habboon dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan kooxaha jihaadiyiinta. In ka badan 10 sano, Mali waxa ay ahayd goob dagaal. Xiisadda hadda ka jirta dalka Mali ayaana ah mid khalkhal ku abuuraysa caalamka. Sanadkii 2012, kacdoon ka dhacay waqooyiga dalkaasi iyo kor u kaca kooxaha jihaadiyiinta ayaa dalka geliyay fawdo iyo dhibaato. Ciidamada Faransiiska ayaa soo farageliyay sanadkii 2013, iyaga oo dib u riixay maleeshiyaadkii, laakiin nabaddu waxay ahayd mid aan caga badan ku taagnayn. Jihaadiyiintii ayaa dib isu soo abaabulay, waxa ayna ku baaheen bartamaha Mali. Marka ay aamintu gaartay sanadkii 2020, dhibaatadu waa ay sii kordhaysay. Musuqmaasuqa dowladda ka jirayna waxa uu hareeyay guud ahaanba dhaqaalaha dalkaasi, isaga oo markii dambe keenay in afgembi militari uu ka dhaco dalka. Kooxda talada haysa ee junta waxa ay ballan qaadeen inay soo celinayaan nidaamka oo ay adkeynayaan, sidoo kalena ay ka adkaanayaan kooxaha jihaadiyiinta. 5 sano kadib, ballanqaadkaasi waa uu fashilmay. Kacdoonkiina waa uu sii xoogaystay, waxa uuna noqday mid ka sii xooggan sidii hore. Dowladduna waxa ay ka go'doonsan tahay guud ahaanba caalamka. Haddaba maxay yihiin kooxdan loogu magac daray JNIM? Waa koox aad u awood badan oo ka dagaalanta dalka Mali,
waxaa la aasaasay sanadkii 2017 markii 4 koox ay ku midoobeen calanka Al-Qaacida. Hadafka kooxdu waxa uu ahaa inay ridaan dowladda Maali oo ay dhisaan dowlad Islaami ah oo ku salaysan tafsiirkooda adag iyo shareecada. GNIM waxa ay dhistay shabakad dagaalyahano ah oo si degdeg ah ugu dhex gurguura meelaha fogfog iyaga oo wata mootooyin kuna dhex milma bulshada deegaanka. kaliya ma dagaalamaan ee waxa ay kale ay dad ka qaadaan canshuurta ganacsatada, waxayna maamulaan maxkamado u gaar ah. waxay isu soo bandhigaan inay yihiin maamul bedel u ah dowladda hadda talada haysa. meelo badan oo dalka ka mid ah waxa ay noqdeen madaxa rasmiga ah ee halkaasi ka taliya. kooxdu waxay isku maalgelisaa lacagaha madax furashada ah ee laga helo dadka la soo afduubto, canshuuraha iyo baadda laga qaado gaadiidka, macdanta iyo kontrabaanka dalka la soo geliyo, agabka kala duwan ee shidaalka iyo hubka. Bamako waa wadnaha dalka Maali, waxaa ku nool in ka badan 4 milyan oo qof. waa xarunta siyaasadda, ganacsiga iyo maamulka. in ka badan 90% ganacsiga rasmiga ah waxa uu ka howlgalaa caasimadda. haddii Bamako ay dhacdo ma noqonayso kaliya guuldarro military ee waxay calaamad u noqonaysaa dhamaadka qaranka Maali. laga soo bilaabo sanadkii 1960 markii dalkani uu xornimada ka qaatay dalka Faransiiska, waxaa soo maray hogaamiyeyaal kala duwan. Modibo Keïta waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Maali xornimadii kadib sanadkii 1960 ilaa 1968 ayuuna maamulayay dalka. hogaankiisu waxa uu ahaa nin aaminsan nidaamka hanti wadaagga ee loo yaqaano socialismka. dhamaadkii waxa uu xukunka looga tuuray qaab afgembi ah oo uu hogaaminayay Moussa Traoré sanadkii 1968. Moussa Traoré ayaana qabtay hogaanka dalka, waxa uuna dalka xukumayay muddo 23 sano ah isaga oo ahaa sargaal military sanadkii 1968 ilaa sanadkii 1991. hogaankiisu waxa uu ahaa xukun keligii talis ah oo markii dambe isu bedelay nidaam hal xisbi ah. dhamaadkii waxa uu xukunka looga tuuray qaab kacdoon shacab iyo afgembi kale ah sanadkii 1991 kadib markii ay dhaceen mudaharaadyo uu dhiig ku daatay. madaxweynihii saddexaad ee dalkan soo maray waxa uu ahaa Amadou Toumani Traoré. kadib markii uu hogaamiyey afgembigii ka dhanka ahaa Traoré, waxa uu dalka u horseeday doorashooyin xalaal ah isaga oo xukunka ku wareejiyay rayidka, taas oo u horseeday in loogu yeero askari saaxiib la ah dimuqraadiyadda. waxa uuna dalka hogaaminayay laga soo bilaabo sanadkii 1991 ilaa 1992. madaxweynihii afraad ee dalkan soo maray waxa uu ahaa Alpha Oumar Konaré. waxa uuna ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee si dimuqraadi ah loo soo doorto. waxa uu dhameystay labadiisii xilli dastuuriga ahaa. waxa uuna dalka hogaaminayay 10 sano isaga oo xukunka ku wareejiyay si nabad ah. waxa uuna dalka hogaaminayay laga soo bilaabo sanadkii 1992 ilaa sanadkii 2002. madaxweynihii shanaad ee dalkan soo maray waxa uu ahaa Amadou Toumani Touré. waxa uu ku soo laabtay xukunka isaga oo rayid ah kadib markii uu ku guuleystay doorasho ka dhacday dalkaasi. waxa uuna dalka xukumayay sanadkii 2002 ilaa sanadkii 2012. dhamaadkiisii waxaa xukunka mar kale looga tuuray qaab afgembi military ah bishii Maarso sanadkii 2012 iyada oo lagu eedeeyay inuu ku fashilmay sidoo kalena wax ka qaban waayay kacdoonkii loogu magac daray Tuaregta iyo jihaadiyiintii waqooyiga dalkaasi. madaxweynihii ku xigay ee dalkan soo maray ayaana ahaa Ibrahim Boubacar Keïta. waxa uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday sanadkii 2016 dalka Maali kadib markii uu dalku degay. waxa uuna dalka hogaaminayay sanadkii 2013 ilaa sanadkii 2020. dhamaadkiisii sanadkii 2020 waxaa dhacay mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeeday musuqmaasuqa iyo amni darrada sii kordhaysa ee dalkaasi ka jirtay. ciidanka ayaana mar kale faragelin ku sameeyay, waxaana lagu qasbay inuu iscasilo bishii Agoosto sanadkii 2020. madaxweynihii toddobaad ee dalkan soo maray ayaana ahaa Bahnadow. bishii Sebtembar sanadkii 2020 Bahnadow ayaa la wareegay xukunka dalka. waxa uu ahaa madaxweynihii ku meel gaarka ahaa ee loo magacaabay inuu dalka u horseedo doorashooyin. hase yeeshee waxaa xabsiga dhigay militariga Corneille Assimi Goïta kadib markii ay isku khilaafeen isku shaandhaynta golaha wasiirada.
Corneille Assami Goïti ayaana xilka la wareegay bishii May sanadkii 2021. Corneille Assami Goïti ayaana hadda ah madaxweynaha rasmiga ah ee ka taliya dalka Mali. waxa uu hadda yahay madaxweynaha rasmiga ah ee dalka. dawladdiisu waxa ay xiriirka u jirtay Faransiiska waxayna iskaashi dhow la sameysatay dalka Ruushka gaar ahaan kooxda loo yaqaan Wagner. Mali tan iyo 1960kii markii uu xorriyadda ka qaatay dalka Faransiiska waxaa soo maray 5 afgembi oo military oo guuleystay sanadkii 1968, 1990kii, 2012kii, 20kii ilaa sanadka 2021kii, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah dalalka ugu xasilooni darrada badan qaaradda Afrika iyo gobolka Saaxil. Haddaba maxaa xiga? khubaro badan oo arrintan falanqeeya waxa ay sheegeen inay ka soo bixi karto natiijooyin suurtagal ah. 1. guulo military in uu gaaro dalka, in dawladdu ay qabsato wadooyinka sahayda, sidoo kalena ay ka adkaato nidaamka hadda jira ee kooxaha jihaadiyiinta. 2. wada hadal in uu dhaco oo ay wada hadlaan labada kooxood ee maamulka talada haya iyo kooxaha jihaadiyiinta. qodobka saddexaad ayaana ah in burbur guud uu ka dhaco dalka, sidoo kalena kooxda jihaadiyiinta ay la wareegaan guud ahaanba qaybaha kala duwan ee dalka, taasna ay ka dhalato dawlad ay maamusho Al-Qaacida oo ku taala galbeedka Afrika sida Afghanistan oo kale. fadlan daawade, haddii aad halkan nala soo gaartay channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran, waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaalo xiiso badan.